السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسكو سو نقد wanaagsan gabdhayga qaaliga ah meel walba joogtaan soo laabta oo isku imaada. waxaan rajeynayaa hooyooyin badan oo igu xiran in ay sugayeen muuqaalada qaabka aan soo dardargelinayo in ay ka faa'iidaan ay u baahan yihiin. aadaan iga mahad celinayaa mar walba dhiirigelinta ay siidaan iyo sida quruxda badan oo markasta aad igu amaantaan waxyaabaha aan ila wadaago. intaas kadib hadii markasta muuqaaladan waxaan ugu talagalaa hooyooyinka haysto caruurta yaryar hooyadaada ahayn adiga laguma talagelin balse faa'iido ahaan asaga fiirsan kartaa si gabar kale oo laasha ah aad uga faa'iideysid. intaas kadib waxaan rajeynayaa in muuqaaladan aad ay ku cajabiyaan. ku soo dhawo channelkan mar walba waxaan soo geliyaa waxyaabaha caruurta quseeya qaasatan cuntooyinkooda cabitaanaadka iyo waxyaabaha aan isdhihi karo hooyooyinka aad bay uga saacidayaan koriimada caruurta. mar walba garabkeena ayaan ahay wax walba aad u baahataan. waan rajeynayaa in halkan aan igula wadaago. subscribe saaro channelka haduu ku ahayn like garay muuqaalka si share garay oo share garay walaasha mudan in aad la wadaagtid waxyaabahan iyo waxyaabo ka fiican intaba. channelka gadaal u laabta 10 fiican ayaa ku jira soo daawada muuqaaladan daawashada haloo badiyo insha Allah. intaas kadib maanta waxaan ku wadaa waxyaabo ilmahaaga hada siidid cunugaaga uu noqon doono cunug miisaankiisa si cajaa'ib ah oo miisaan fiican u yeesho. ugu horeyntii waxaad u baahan tahay mar walba ilmaha inaad siidid cunto nafaqo leh. cuntada nafaqada leh waxaa kamid ah waliba ilmaha aad ay ugu dheeraadaan miisaan fiican ay ka helaan ukunta waxyaabo badan ayaa ku jiro. waxa u baahan tahay ukun, waxa kale aad u baahan tahay baradho, waxa kale aad u baahan tahay karood. intaas ayaa isku karinayda qaabkan aad u jeedid ayaad isugu qasay ka bacdina waad isku karinayda. marka hore karootada soo ugu horeyntii karootada soo nadiifi soo hool. baradhada ayadan si yar u jarjara daarabtina waa soo hooli kartaa laakiin biyo ayay ka noqonaysaa oo nafaqadeeda ayaa bixiyso. ka bacdi karootadii iyo baradhadii aad soo hooshay ayaa waxaad sameynaysaa weel ku shubanaydaa 1 xabo oo ukun ah ilaa 2 xabo oo ukun ah ayaad isugu qasaydaa cunugaaga ama ilmahaaga. dabka ayaa waxa saaranaydaa birtaabo waxaad ku shubaydaa saliid haysatid ama oil leaf ama macsaro ama batar ama subag wixii marka ku sahlan ayaa muhiim ah. inta marka isku dirtid oo si fiican ukuntii baradhada iyo karootada isugu soo qastid waa isku xeenaysaa. marka si fiican isugu qasmaan ayaa birtaawada dabka saaranay meel dhexe ayaa geesanaydaa waad ku shubay dabka meel hoose ayaad u geynaysaa. si fiican marka isku qabsato ayaa waxaad sameynaydaa dhanka kale ayaa u gadinay guduud markay ku noqoto ay si wacan isku qabsato ayaadna soo qabanaydaa waadna u jarjaraydaa cunugaaga si qurux badan ay kuugu kori doonaa caafimaad taam ah ayuu ka heli doonaa. baradhada aad u weyn ilmaha ugu dadaala lafay korisaa maqaarkay korisaa cunuga dhirigtiisa ka qayb qaadataa miisaan fiican ayay leedahay. ukunta vitamin D ka buuxo calcium ay leedahay waxyaabo badan oo waxa ku jira caruurta koriimadooda ka qayb qaato. mar walba waxaan rajeynayaa hooyooyinka inaysan ka daalin ubadkooda ay u sameeyaan cuntada ka nafaqo badan tahay walaashina garabkiina ay taagan tahay markasto cuntooyin tayo wanaagsan leh ayaan ila soo wadaagtaa. adinkana waxa loo baahan yahay in aad fadhiga ka kacdaan oo aad uga faa'iideysataan caruurtiina. ilaahani keenay ka faa'iideysta muuqaalada like tan saara sina share gareeyo si hooyo walba uu u gaaro aniga dhiirigelin xoog badan ay igu noqoto. intaan marka cunugaaga siidid oo ahaan aad u siidid waxa siinayda galaas caana ah maasha Allah. cunugaas wuxuu noqon doonaa cunug inaba aad ka sheekay doonin oo alxamdulillah inta tiraadid aad qarsatid natiijada aad ka heshid asligeeda. hooyooyin badan oo waxa jira mowduucan aad ugu baahan hooyooyinkaas si qaas ah ayaan ugu dhiirigelinayaa in ay u sameeyaan cuntadan caruurtooda si ay ugu helaan ilmihii xal rasmi ah. cunugaaga cunto diid ma yahay jawaabtaada haadee tahay cuntadan u sameyso wax badan ayaad ka arki doontaa. marka aad u sameeyid yoogad oo kaleeto ayaa gees u dhigaysaa. intaan iyo yoogadka isku daardaarto qudaarta aydan kama marno geeska kale u dhigo qajaarka ama hadii kaleeto fruutka noocyadiisa kala duwan sida tufaaxa liin macaanta canabka waxyaabihii aad heli kartid ayaa muhiim ah. waxaad heli karin cid kugu qasbeeda ma jiro hooyo kasto jeebkeeda ama hadii kale wixii markaas ayada ay u aragto danteeda inay ku jiraan ayaa muhiim ah. isku day marka mar walba ilmahaaga si wacan inaad u korisid. ilmaha Soomaalida inta ugu badan
badan nafaqa daro ay ku koraan ilfooda aad bay u dhuudhuuban yihiin markay weynaadaan sababtana waa waxyaabaha borotiinka leh calciumka laga helo fitamiinaadka laga helo oo aad ugu yar waxaasoo dhan iska jooji hooyo ilmooley ah haddii aad tahay ku dadaal waxyaabaha nacfiga kuu leh ilmaha kula korinayo ilmaha meel sare kuu gaarsiinayo koriimadooda ka qayb qaadanayo waxaan rajeynayaa hooyooyinka inay aad uga faa'iidaystaan waxaa gudagelaynaa cashirkii labaad oo ah qadadan ilmo kasto aad bay u anfacaysaa cunugaaga maalinka 7 bilood uu gaaro u sameyso ilmaha 3 sano jir waa la sii karaa 4 sano waa la sii karaa 5 sano waa la sii karaa xitaa kuwa ka waaweyn waa siisan kartaa waa borotiin calcium iyo vitamin A vitamin B12 waxyaabahaas ku jiro insha Allah waxaan rajeynayaa hooyooyinka aad inuu caawiyo ugu horeynta waxa u baahan tahay saliid ama butter wixii markaa ku sahlan waxa kale taa ku soo jarjaranayda basal waxa kale taa ku darsanayda karooto baradho ay qudaar ah haysatid waxa ku darsanayda bariis iyo cadaska midka jaalaha ah ama midka kale oo dubka leh ayaa ku darsanayda intaas markaa soo ruuxaysid ayaa waxa sameynay hal xabo oo kuna biyo ku soo karinayda markii intaan bisel ay ku noqdaan ayaa dusha uga darsanay waa isugu jajabinay cunugaas qada ahaan ayaa u siinayda cabitaankiisa ayaa u shiiday kala arag waxba lagama qaban karo muhiim waxa ah cunuga in uu helo cunto nafaqo leh cunto nafaqaysan cunto jirkiisa ay ka muuqanayso markii la siiyo hooyadana la dhahayo ilmihiisa si qurux badan ay u koreen muhiim ma aha waxa dadka ku leeyihiin laakiin muhiim waxa ah wixii nafsadaada ay ku leedahay oo ah in ay ku faraxdo nafsadaada aad istiraadid cunugaaga wallahi si qurux badan uu kugu koray ilaahay ka sukoona adiga sabab oo ah leena hooyo walba oo dadaasho dadaalkeeda ilaahay wuu garab gelaya waxa ilmaha cunayaan xalaal hadii yihiin mid kale ilmaha cuntooyin fitamiin la siiya cuntooyinka baradhada ku badan la siiya ukuntana u badiya insha Allah wax walba oo borotiin iyo laga helayo calciumka vitamin D-ga aad weyn ay caruurta ugu fiican yihiin waqtiga oo loo yaqaan qadada oo kale ilmaha markii intaan oo kale qada ahaan aad u siidid waxa wacan in cabitaan aad siidid cabitaanka ay qudaar ama ay fruit ha ka koobnaado muhiim oo waxa ah cabitaan sokor aan lahayn ilmaha sanadii ka yar yihiin ama hadii kale to sanadii ka weyn oo kale malabku adeegso ama wax yar sokor u adeegso muhiim waxa laakiin in waxyaabaha aad siinaysid ay noqdaan cabitaano isku dheelatiran la isku xulay hooyo active ah ay sameeyay hadii aadan aqoonin qaabka cuntooyinka la isugu daro ama hadii kale ay isku qaadan karaan channelkan ayaa u baahan tahay imaaw la soco si waxyaabo badan oo kaaga soxo gadaal u laabo cashirada soo fiirso wixii ku anfaco insha Allah la bax waxyaabo badan oo waxa jiraan gabdhaha aad isugu baraarugsaneen balse aan soo geliyo mar walba aysan la socon waxyaabahaas la socdaan sida cuntooyinka caruurta mar walba waa soo kala gediyaa oo waxyaabo cusub aan soo kordhiyaa markasto waxaan rajeynayaa in hooyooyinka ay fahmaan meesha sababtoo ah ilmaha mar walba cuntooyin markii weeygo kale ay ku celcelisid weeyga kale waxa muhiim ah in cuntadii aad u kala bedeshid ay noqoto cunto kala bedelan dhadhan kala wanaagsan leh ama dhadhan kala duwan hooyo kasto oo ilmaheeda wax kala duwan siidana ilmaha way kaga xiiseen og yihiin cuntadii markii yaani bishii dhan hal nooc karinaysid iyo bishii markii intaas iyo dhowr 10 nooc ka badan aad u sameynaysid oo markasto ayaga calooshooda wixii gali lahaa ka talinaysid way kala gedisan tahay oo ilmahaas waxay noqon doonaan ilmo xiiso u qabo cuntada ku weydiiyo ku yiraahdo hooyo caawa waxaas noo sameey cuntadaas jecelnahay cuntadaas noo sameey oo qadada saas nooga dhig oo cashada saas nooga dhig waa ilmaha wax garto ilmaha kale aan waxba garanna ayagana aad bay ugu baahan yihiin in wax loo kala gediyo quraacdii oo kale hadii wax walba hal quraac aad siidid waxaad sameeydaa qadadii iyo cashadii nooc uga dhig leena mar walba ilmaha waxay u baahan yihiin cuntooyin kala gedisan cuntooyin naftooda ay xulo karto cuntooyin dhadhan wanaagsan leh cuntooyin maskax ahaan cunuga ugu degayo cunto cunuga asagoo u baahan uu ka tagayo intuu cuno hooyooyinka habaraan ilmahooda gacanta inay wax ku cunaan cunuga maalinkuu gaaro sanad waa inuu gacantiisa wax ku cuni karo waa inuu noqon karo cunug gacmihiisa ay yaqaanaan afkiisa
si waxyaabo badan uu u raadsado uu cuno uu noqdo cunug xaqiisa dhacsado. Ilmaha cuntada afka looga guraayo fawaa'id badan ma lahan, waxyaabo badan ka qaldan. Ka joojiya ilmaha bara cuntada saxamo yaryar oo qurxoon u sameysta caruurta, kabacdina ugu shuba qof walba meel fariisi. waxaad tiraahdaa qofka ka hor dhameysto aaguush iska leh tartan u qaba ilmaha. mar waa la sirsiraa, marba si ku fiiri, marba yacni wax u adeegso. ilmaha waa ciyaal yaryar waxba ma oga, laakiin markii ilmaha wax fiican loo sheego tartan ay isugu baxaan, dhiirigelin ayay ka qaataan. isku day cunugaaga inaad ka dhigtid cunug active ah, ilmo maasha Allah firfircoon, ilmo caqligooda cabiro, ilmo aad la sheekeysatay, ilmo markastoo hore u socod leh ha noqdaan. ilmaha niyada u dhis, ilmaha waxyaabaha ay cunayaan ka qayb qaado adigoo talo wanaagsan ka siinayo. waa ilmaha rooroon oo wax fahmayo. ilmaha yaryarna cunto wanaagsan u sameyso. waxaa ku leeyahay muuqaalkan hadduu soo gaaro like saar, haddii subscribe usku ahayn channelkana saar. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.